saddex sano kadib markii ay ciidamada Mareykanka ka baxeen dalka Ciraaq, wadankaas wuxuu 2014 mar kale galay dagaal cusub. Xilligaas waxay dowladda Ciraaq la dagaalameysay kooxda isku magacawday dowladda Islaamiga ah ee loo yaqaano Daesh. Ali Hussein Qadim oo ahaa askari ka tirsanaa ciidamada Ciraaq sidoo kalena ah Shiici Muslim ah ayay xoogaga ISIS ku qabteen magaalada Tikrit ee dalka Ciraaq bishii Juun ee sanadkii 2014. wuxuu BBC-da ugu waramay sidii mucjisada ahayd ee uu uga badbaaday dadkii la tooganayay ee uu isagu ku dhex jiray. Cali wuxuu sheegay in uusan weligiis iloobi doonin wixii ku dhacay isaga iyo 1700 oo ah askartii tababarka ku jirtay. askartii uu ka midka ahaa oo badankood dhalinyaro ahaa ayaa saf la wada geliyay waana la toogtay. 24 bishii Juun 2014 ayay mintidiinta isku magacawday dowladda Islaamiga ah ee ISIS dileen boqolaal dhalinyaro ah oo ku biiray ciidamada Ciraaq kuwaas oo lagu tababarayay xerada Spayker. laakiin Ali Hussein wuu ka badbaaday dhacdadaas. tanina waa sheekadiisa. marka aan is eego wax walba dib ayaan u soo xasuustaa. waxaa igu soo dhaca sidii aan ku badbaaday, sidoo Allah igu badbaadiyay dadkii la leynayay dhexdooda, ayuu yiri Ali Hussein. dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha ah oo i haystay awgood ayaan ugu biiray ciidanka militariga Ciraaq. ma jirin shaqo kale oo aan ka heli karo lacag aan ku caawiyo qoyskayga, ayuu yiri. Ali wuxuu ku nool yahay magaalada Diiwaaniya oo koonfurta ka xigta caasimadda Baghdad. guud ahaan gobolkaas dadkiisa intooda badan waa Shiico. maalmo ka hor inta uusan dhicin weerarka ISIS ayuu Cali tababar ka bilaabay xerada Spayker. dhammaan saaxiibaday iyo qoyskaygaba waxay igu dhaheen ha aadin xerada Spayker sababtoo ah waxay ku taalaa magaalada Tikrit oo ah meeshii uu ku dhashay. Allah u naxariistay Saddam Hussein. dadkii saxiixay amarkii lagu dilay Saddam waxay ahaayeen Shiico. isagoo labalabaynaya ayuu iska aaday Tikrit. runtii waan cabsanayay markii aan baxayay. markii aan tagay magaalada oo aan arkay in dadka Sunniyiinta ah badankood ay fiican yihiin, aad baan ula yaabay sababtoo ah waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan arko qof Sunni ah. 12 maalmood ee ugu horeysay intii aan ku jiray xerada waxay ahaayeen kuwa caadi ah, laakiin markaas wixii ka dambeeyay wax walba way isbedeleen si lama filaan ah. isla markii ay kooxda ISIS tagtay magaalada Tikrit, inta badan askartii saldhigga ku sugnayd way carareen, waxayna goobtaas uga tageen kumanaan dhalinyaro ah oo aan weli tababaranin. waxaan xiranay dharka shacabka, waan isaga tagnay xerada annagoo iska dhigayna rayd. xoogaga ISIS ayaa noo yimid, waxay nagu dhaheen soo dhawaada, annagu waan haysanaa hub, laakiin waxba idinma yeelayno, ha baqina, waxaan idin geynaynaa xarunta madaxtooyada si aad halkaas uga dhaarataan in aydan dib dambe ugu laaban doonina ciidanka, ayuu yiri Hussein. qaar ka mid ah hogaamiyaasha ISIS waxay qayb ka ahaan jireen dowladdii Saddam. markii la tagay qasrigii madaxweynaha waxay iska fasaxeen dhalinyaradii Sunniyiinta ahaa ee ka midka ahaa askartii tababarka ku jirtay, laakiin waxay ka haysteen kuwii Shiicada ahaa oo Ali Hussein uu ku jiray. si fiican ayaan u xasuustaa qaabkii uu wax u dhacayay. nin ka mid ah kooxda ISIS ayaa isagoo qaylinaya nagu yiri waxaan idinka arsanaynaa wixii aad ku samayseen Saddam, waan idin gowracaynaa. waxaan maqlayay dhawaqa rasaasta. nin ka mid ah ISIS ayaa soo kor istaagay safkii aan ku jiray wuxuuna bilaabay in uu mid mid u toogto dadkii aan ku jiray. markii uu toogtay qofkii saddexaad ee ugu xigay, dhiiggiisa oo diiran ayaa igu daatay. waxaan maqlay xabadii loo waday qofka afraad oo ah aniga, laakiin ma garanayo meesha ay aaday rasaastaas. markii uu dhammaan dadkii wada toogtay wuu ka dhaqaaqay meeshii. wax yar kadibna askari ayaa yiri ninkan weli waa neefsanayaa, weli waa nool yahay, ninka uu ka hadlayana waa aniga. kadib ninkii hogaamiyahooda ahaa ayaa yiri iska daaya, waa nin aan muslim ahayn oo Shiico ah, dhiigbax ha u dhinte, ha dareemo xanuunka. laakiin aniga ma aanan dhiigbaxaynin, rasaasna iguma dhicin, waxa korkayga ka buuxay dhiigga dadka kale ee la laayay. meeshayda ayaan iska jiifay ilaa inta uu gobolka ka dhacayay oo ay habeen ka noqonaysay. dhagahayga oo dhan dhiig ayaa ka buuxay. saacado badanna waxaan dhex jiifay meydadka dadkii halkaas lagu laayay. Allah ayaa mahad ku leh in aan dib ugu laabtay qoyskayga. ma hilmaami doono wixii aan arkay maalintaas, mana aha wax si sahlan lagu iloobi karo. ilaa 1700 oo askartii tababarka ku jirtay ah ayay dileen xoogagii ISIS. Hussein wuxuu ku jiraa dadka farakutiriska ah ee ka badbaaday xasuuqaas.